بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الصوماليين ملك استواد شوكتان به waxaan ku baaqayaa walaalayaal wanaag iyo walaalnimo. qof kasta oo Soomaaliyeed masabku doona ha joogo, magacu doona ha lahaado, meeshu doona ha joogo, waxaan ugu baaqayaa wanaag iyo walaalnimo. waxaan rabaa inaan istul taago waa maxay wanaag, waa maxay walaalnimo. walaalayaal wanaag waa wax kasta oo qofka anfacaya aakhiradiisa iyo adduunkiisa. waa wax kasta oo qofka raali gelinaya. qofka wanaaga u saaxiibka wax kasta oo raali gelinaya way. hadday tahay deeq, hadday tahay dareen, iyo hadday tahay waxa weeye carab iyo hadal intaba. waxaanu arkaynaa walaalayaal waxa wanaaga ka mid ah in dalkeennii waxa weeye maxaa ku dhacday burburka markuu burburay aynu gacanta u galay bini aadan inaga qeyrkeena oo aynu u baahanay in maxaa ku dhacday gacan bini aadan. in waxa weeye gacanta bini aadan wax badan aynu waxa weeye runtii aynu ka helay. ama ha noqoto macaawinaad waxa weeye waddanka gudahiisa laynoogu soo dirayay marka ay abaaruhu dhacaan, marka waxa weeye maxaa kula dib u heshiisiino laynoo samaynayay iyo shirar laysugu soo keendhaweynayay. ma garanaysaa, ama ha noqoto waxa weeye maxaa kuladay ciidamo maxaa kula laynoo soo diray oo inaga ina kala ilaalinayay oo ina kala celinayay. ama ha noqoto waxa weeye walaalayaal waxa weeye maxaa kuladay marka aynu banaan dibadaha u qaxnay dalkeenu aynu ka yaacnay soo dhaweynihii kala duwanaa ee daafaha caalamka laynugu sameeyey. waxyaabahaas oo dhan waxa weeye waa wanaag, iyadoo aanay reebanayn in bini aadanku ay ku yeeshaan dano gaara. wanaagga la samaynayey ee laynoo samaynayey iyadoo aanay reebanayn in dadyowga inoo samaynayey ay iyaguna ka arkayeen dantooda wax ka mid ah ma reebana. in waxa weeye bini aadanku waxa weeye wax uu u wanaag sameeyo waxa isaga dantiisa ah. qofka uu danta ka leeyahay ama waddanka uu danta ka leeyahay ama mujtamaca uu danta ka leeyahay inuu u wanaag sameeyo waxa weeye maxaa ku dhacda walaalayaal ma reebana oo waxa weeye iyada lafteedu waa wanaag. waxaanu arkaynaa maanta dadkeenu inay joogaan daafaha caalamka oo dhan ilaa iyo Maraykanka ilaa iyo waxa weeye maxaa ku dhacday meesha la yiraahdo walaalayaal daafaha caalamka dadkeenu inay joogaan ayaanu arkaynaa. in lagu soo dhaweeyay Maraykanka, Australia, ma garanaysaa Canada, waxa weeye Yurub daafaheeda, meel walba in dadkeenu markii aynu qaxnay in laynagu soo dhaweeyay oo dadku wixii ay haysteen wax laynaga siiyay. waa qayb ka mid ah wanaagga way. waa qayb ka mid ah inaynu walaalayaal aynu waxa way tahay ayna tahay inaynu ku shukrino walaalayaal raalahaada. waa waxay tahay inaynu ku shukrino walaalayaal oo aynu ka mahadino. waxa weeye man laa yashkuru annaas laa yashkuru allah. qofka haddaan waxa weeye dadka u mahadnaqin u wanaag sameeya uma mahadnaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan arkaynaa walaalayaal dalkeennii maanta inuu u baahan yahay waxa ugu badan ee u baahan yahay iyo dadkeenniiba waxa ugu badan ee ay u baahan yihiin inay tahay wanaag. inay tahay wanaag, inay tahay inaynu u naxariisano. wanaagga waxaa ka mid ah oo aynu samayno innaga lafteennu aynu samayno waxaa ka mid ah mararka ay aafooyinka waaweyn ay dhacaan, xidhiidhka aynu la leenahay ehelkeennii iyo qaraabadeennii aynu ku qiidino dadkeenna qurba joogtahay waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey. waxa weeye maxaa ku dhacday deeqaha bini aadanka ah ama aynu shaqaysanay ee dadkii aynu u tagnay aynu ka dhaxalay inaynu la wadaagno dadkii qaraabadeenna ahaa, dadkii ehelkeenna ahaa ee aynu ka nimi oo wixii ma garanaysa inooga go'i kara aynu siinaynay 30 sano ee dalku burbursanaa. waa wanaag, waana waxaynu ku ammaananahay, waana waxa dadku ay ku sii cirriqayeen oo 30 sano ee burburku jiray uu ku socday waxa weeye mujtamaca Soomaaliyeed ee waxa weeye noloshiisu ay ku sii jiitamaysay ay ku socotay. walaalayaal waxa weeye waxa ka mid ah aafooyinka sida aan sheegay, aafooyinka dhacaya oo hadda ay ugu dambeysay tii hadda beledweyne oo shacabka Soomaaliyeed ay si qurux badan ay uga jawaabeen. waxa weeye maxaa kale waxay tahay walaalayaal in aynu joogtayno marka waxyaabaha wanaagga ah ee waxa weeye anfacaya ummadeenna adduun iyo aakhiraba inaynu joogtayno oo aynu badino
oo aynu dhammaan sida ay mararka aafooyinku aynoogu dhacaan aynu mar walba isu barbartaagno waxa weeye maxaa ku dhahdaa aynu u barbartaagnaano wanaagga xumaantana aan la dagaalano walaalayaal wanaagga aynu barbartaagnaano xumaantana aan la dagaalano arrintaas waxaan leeyahay walaalayaal ama carab ha noqoto ama calaf ha noqoto ama cudud ha noqoto shacabka Soomaaliyeedo waxa laga doonayaa wanaag waxa laga doonayaa dalkaaga inaad ku dhisto wanaag waxa laga doonayaa dadkaagii burburay inaad ku badbaadiso wanaag waxaad ogtihiin walaalayaal asbaabta jirta ee maanta ina haysataa dalkeennii iyo dadkeenniiba inay khatar ku jiraan dadkeennii 30 sano ayuu dawlad lahaan ahaa 30 sano ayaa dagaal waxa weeye uu ku socday mid dadban iyo mid maxaa ku dhahday muuqdaba dadku markaa way daalan yihiin dadka dalkii jooga waa ay daalan yihiin aad iyo aad bay u daalan yihiin xaaladooda caafimaad baa liidata xaaladooda dhaqaale baa liidata xaaladooda maskaxeed baa liidata waxa weeye dadku waxay ku jiraan xaalad adag bay ku jiraan walaalayaal sidaa darteed waxay tahay qof kasta oo waxgarada meeshuu doona ha joogo inuu wanaag waxa weeye maxaa ku uu ku dadaalo wanaaga oo dadkiisii iyo dalkiisii waxa weeye maxaa ku shartiisana ka cishado wanaaga wixii uu wanaagsan ee isaga naftiisa u wanaagsan ee uu naftiisa la jecel yahayna inuu dalkiisa la jeclaado inuu ku daydo dadka waxa weeye aynu la joogno ee waxa weeye waliba khaasatan dadka qurba joogta baan la hadlayaa dalalka aynu joogno walaalayaal waa sida lagugu soo dhaweeyay sida lagugu ixtiraamo sida aad dadka nolosha u wadaagto sida xuquuqdaada loo ilaaliyo sida wax walba ma garanaysa maxaa ku dhahday wanaaga aad waxa weeye ula wadaagto bini aadanka aad u timi ayaa waxaa rabaa dadkaaga Soomaaliyeed ama dibad ha joogeen ama gudaha joogeen inaad la wadaagto walaal gacali aad iyo aad baan intaas ayaan ku daynayaa walaalayaal arrinta wanaaga ah waxaan codsanayaa waxa weeye maxaa ku dhahday wanaagu waxa weeye waa beer kamida beeraha jannada waxa weeye maxaa ku dhahday wanaagu waxa weeye maxaa ku dhahday liibaanta adduun iyo aakhiraba wanaagu waa danta qof kasta oo aqli u saaxiiba wanaagu waa qof kasta oo waxa weeye maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku dhahday dantiisa weeye intaas haddaan uga baxo qodobka kale ee maxaa ku dhahday walaalnimadu walaalayaal walaalnimada lafteedu waa wanaaga waa laba kelmadood oo isku xiran walaalnimadu waxa weeye walaalayaal waa wada dhalashada walaalnimadu waxa weeye waa midabka walaalnimadu waa deegaanka walaalnimadu waa magaca waxa weeye waxa inaga dhaxeeya dadka Soomaaliyeed oo waxa inaga dhaxeeya magac baa inaga dhaxeeya maxaa ku dhahday waxa weeye dad muslimiin baynu wada nahay waxaynu nahay dad waxa weeye Soomaaliyeed baynu nahay waxaynu nahay dad isku deegaana baynu nahay waxaynu nahay dad iswada dhalay baynu nahay waxaynu nahay marka loo eego caalamka dad qoys yar ah oo jifa yar ah baynu nahay waxay tahay sidaa darteed walaalayaal inaynu garanno oo aynu waxa weeye maxaa ku dhahday aynu walaalnimada aynu xoojino wax allaale wixii walaalnimada ka soo horjeedana aynu ka fogaano oo aynu ka tagno oo meel iska dhigno waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee waxa weeye jecel dawladnimada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed inay ilaaliyaan waxa weeye walaalkooda ka soo horjeeda inaanay dhibin waxa weeye laakiin iyagoo haddana ka ilaalinaya wax allaale wixii maxaa ku dhahday sidii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo rasuulkiisu ayna fareen u qabanaya oo ugu naseexanaya asur akhaaka dhaaliman oo madluuman inagoo walaalayaal marayna wadadaas waxa weeye Ilaahay iyo rasuulkiisu ay noo jeexeen oo qofka qaldan ay tahay inaynu iskaga qabanno haddii aynu awoodnana aynu gacan ku qabanno haddii aynu awoodnana aynaan awoodin carab aynu ku qabanno laakiin carabkaasi waa inuu noqdaa carab saliima oo waxa weeye maxaa ku dhahday ma garanaysa maxaa ku dhahday keenaya nasteex iyo maxaa ku dhahday u dhibrin oo aan ciidan iyo hub u samaynayn qofkii xumaa ee qaldana aan ciidan iyo hub iyo awood aan u samaynayn walaalayaal waxaan rabaa maanta inta inaan idinla wadaago waxa aan doonaynaa shacabka Soomaaliyeed oo inaynu wax ka baranno waxa weeye maxaa ku dhahday Soomaalidu waxay tiraahdaa oran jirtay nimaan dhul marinay dhaaya male daafaha caalamka baynu wada tagnay ummado kale ummado horumaray baynu la noolahay waxa kale oo aynu nahay ummad muslimiin ah oo xadaarada caalamkan ilbaxnimada aadanuhu waa inay islaamaan waa inay Ilaahay bartaankii amaamuday waxa weeye maxaa ku dhahday waa inay magaranaysaa waa inaynu garanno walaalayaal waxa loo uumay aadanaha
aadanaha gebigiiba iyo adduunyada waxa loo uumay ayaa allayna waafajiyey oo gacanteena geliyey waa inaynu dib ugu noqonno oo magaranaysa iyadana aan ka faa'iidaysano ilbaxnimadu waxa weeye xadaarada bini aadanku gaadhay iyo islaamnimada ilbaxnimada xadaarada islaamka waa inaan ka wada faa'iidaysano oo aan dib ugu noqonno jasaakum allahu khayr wa axsana allahu ilaykum wa sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasallam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh